السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa Maxamuud cashkan waxaynu ku arkaynaa 10 kan ereyo meesha noo saaran ereyga koowaad self catering waa qofkii inuu yani cuntadiisa isaga sameesto yes self oo nafsiyan ah qofkii inuu iskiisu istaago cuntada u sameesto hotel waxa jira self catering ah somebody prepares their own meals qofka cuntadiisa isaga sameesanay ereyga labaad sloshing waa dhawaqa ama guuxa ay sameeyaan biyaha markay qulqulayaan شو markay dadaadanayaan ama qulqul ay sameeyaan dhawaq ay sameeyaan ayaa la yiraahdaa sloshing ereyga saddexaad span waa ina wax diidid ina quursatid yes you reject something quursi yes for example she spanned his offer to help inuu caawiyo yani caawimadiis uu siin rabay way quursatay ama way diiday way gabigeedaba ereyga afraad sting waa past tense of sting ficil waxa jira sting la dhaho oo ah markii insects ay ku qaniinaan saale shinnida markay ku qaniinto waxa leedahay the bee stung her on the hand iyadoo shinnida gacanta ka qaniinta yes sting marka waa qaniyadaas ama micidaas ay ka tigsaa la yiraahdaa sting past tense-geeda marka uu noqonayo ereyga afraad oo ah stung adigu bite amal bay la mid yes ereyga shanaad swallowing wax markay toos u socdaan oo wada dheer ay hayaan waxa la yiraahdaa steady ama linear markay leexleexanayaan oo san toos u soconin iyaduna waxa la yiraahdaa swallowing yes spinning waa dhigi kartaa ereyga lixaad terrace waxa waayo guri hadii uu dabaq yahay xagga hore ama dibadiisa waxa iska yaala meel yar oo lagu talagalay in lagu fariisto galabada shaax la isaga cabo la iska qaxweeyo qofkan uu fresh air ku qaato taaba la yiraahdaa terrace patio aydan waa dhigi kartaa veranda waa dhigi kartaa yes haduu uu dabaq yahay oo xagga kore ay tahayna waa balcony laakiin xagga hoose ee guriga iridiisa hadii la fariisto waa terrace yes we had breakfast on the terrace banaankeena ku quraacana way turquoise waa color waa blue waa color blue green u dhow yani waa blue green color adigu waa iska color for example she wore a turquoise necklace waxay xirneed katinka qoorta colorkiisu yahay turquoise oo ah blue green yes white water rafting waxa la yiraahdaa it's a sport waa nooc kamid ah ciyaaraha yani qofka dooni baa la qaadanaya raft waa doon okay dooma inta badan la afuufan waxa la yiraahdaa inflatable raft waa dooma yar yar oo ula dhinacyada saas yani adigu waa in wabiga lagu ciyaarayo dooma la fuulayo deedna la tartamo yes okay ereyga sagaalaad array waxa la yiraahdaa a large and impressive collection yes wax aad u weyn aadna ku cajabinayo for example the shop displayed an array of shoes yani dukaanku wuxuu banaanka soo dhigay kabayo aad u fara badan aadna ku soo jeedanayo aad ku cajabinayo they very impressive collection waa dhigi kartaa the last word ereyga tobanaad atheist waa mulxid qof diidan ilaahay jiritaankiisa ayaa la yiraahdaa atheist mulxid qofka hadii uu diido waa mulxid hadii uu ku leeyahay shaki ay jiro inuu jiro in kale waa skeptic ama agnostic yes opposite keedan waxay noqonaysaa theist aad un baa ka reebaysaa theist waa qof ilaahay rumaysan hadii waa hal ilaahay rumaysan yahay waxa leedahay monotheist waa hal monotheist waa qof hal ilaahay rumaysan monotheistic religions waxa la isku yiraahdaa diinta maxay ahayd islaamka iyo Jewska iyo Kristaanka anigu ma aaminsanahay hal ilaahay aaminsan yihiin laakiin diimaha la aaminsan yahay ama la rumaysan yahay hal ilaahay aaminsan yihiin ayaa la yiraahdaa monotheistic religions ama abrahamic religions almuhim ereyga meesha noo saaran ee tobanaad atheist waa mulxid waa qof diidan jiritaanka ilaahay hadii uu ku dhax shaki baa iga jiro oo ma hubo ka waxaanu leeyahay skeptic ama agnostic cashka intaas ayuu ka yahay keep learning and have a